safiirka dalka Mareykanka Danjire Donald Yamamoto iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa shalay socdaal ku yimi magaalada Hargeysa waxaana la filayaa inuu maanta kulan la yeesho madaxweyne Biixi. Danjire Yamamoto inkastoo aan socdaalkiisa war rasmi ah laga soo saarin haddana waxaa la sheegay in socdaalkiisu uu la xidhiidho arrimaha doorashooyinka Somaliland oo ay caqabado soo waajaheen iyo dib u bilaabista wadahadaladii Somaliland iyo Soomaaliya ee muddada dheer bahatan taagnaa. geesta kale safiirka dalka Ingiriiska Ben Founder iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa isaguna maanta socdaal ku imanaya magaalada Hargeysa waxaanay wararku sheegayaan in safiirku uu u socdo arrimaha doorashooyinka Somaliland waxaanu isaguna kulan la yeelan doonaa sidoo kale madaxweyne Biixi. macada in socdaalka safiiradan fadhigoodu yahay Muqdisho ay xidhiidhsan yihiin iyo in kale laakiin dadka diblomaasiyadda falanqeeya ayaa aaminsan in socdaalka diblomaasiyiintu uu yahay mid xidhiidhsan waxaanay u socdaan inay madaxda Somaliland culays ku saaraan in laga gudbo khilaafka guddida doorashooyinka isla markaasna doorashadii golayaasha wakiilada iyo deegaanka la qabto sanadkan 2020. diblomaasiyiintan ayaa sidoo kale waxa ay xoogga saari doonaan in ay dib u soo laabtaan wadahadaladii Hargeysa iyo Muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa kuwa taagan kadib markii ay xilalka dalalka Somaliland iyo Soomaaliya qabteen Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.